الرحمن الرحيم هذه عاد بوما سنتين سأل صعوتان دولة الصومالي لا بحوي دولة أيضا الله اعتراف سنة هسية شيء ماذا بنان دولة عالم كلا دقنته سيد دولتها وشقيسة هذه عاد حلوين وجسارين هي إن أي لا يسبب هذه بيه هذا والله صعوتان وحنا نشتغلنا يوروبيان يونيون كا حفيسان كان كلنا إيو كاب نستر كوستال جاربان لنا هاي مسؤوليات بقى نجا سعران ريجن كنا نقولان بديه يسوق جريا مركب كاسو سوق جري سيد وزير كداخل جودن كشجور كفي عالي ذكسية وعسيدي هوب كي وانو أرجني وانو قبلني مسؤوليات بوسك سعرت وزارة الداخل جاية سيرتون كلية دولة دينو وحي صو حقيقي شيء ووركو وسدوها يلبتو سدا هيد مركانو كوكر صوراني وركي حقيقة لها وحلا soo xiriiray dawladda Soomaaliland madaxweynaha dawladda Suudaan waxaanu xaqiijinay inuu markabkaasi ku socday Abu Dhabi iyo macradkeeda hadaa gashaan internetka oo eegtaan IDX 2015 waa arki doontaan markaanu xaqiijinay hubinay UN-kii hay'adda caalamka u sheegnay ayadoo ogsoontiin dacayada fara badan oo aan munaasib ahayn laga sheegay waxaanu goosanay madaxweynihii noo soo xaqiijiyay inuu markab sideed item oo kala gedisan sidii yahay macradkana ku socdo dawladii Abu Dhabi macradkiina la soo xiriireen ee war sugan uu soo helay wasiirada dakhligeeni oo xaqiijiyay wasiirada dakhligeeni madaxweynaha Soomaaliland wuxuu goostay inuu tixgeliyo warqadii uu madaxweynaha Umar al-Bashir soo diray sida awgeed baan ku fasaxnay waa dawlad aan walaalnahay jaarnahay asxaabnahay cilaaqaad faacad badan naga dhaxayaan arday badan ورئيس Soomaaliland jaamacadooda ku bartaan cilaaqaad weyn aan la leenahay markaanu ku qanacnay warqadii madaxweynaheenu arkay ee dawladda Soomaaliland aragtay uu soo xaqiijiyay wasiirada dakhligeenu waxaanu goosanay inaan markabkiisa deyn ma wasiir waxa jira xukuumaddu waqti ma qabatay markabkan iyo in la soo cadeeyay ciidan maadaama manifesto aanu ku jirin markab ku sitay muddo 4 saacadood markii hore loo qabtay haddana muddo kale loo qabtay inta ma isweydiisay wax dawladda Suudaan u sheegan weyday maanta keenay markabka la dajinayso ma dawladda Suudaan way soo cadeysay dawladda Soomaaliland waxa u dhaqantay sida caalamka iyo dawladaheeda ma nihin island yar meel gaar ah ku yaala beesha caalamkeenu ka mid nahay markaan la xiriirnay sirtoonkeygii iyo wasaaraddeena dakhliga iyo booliiskeena iyo ciidankeena coastal guardku iyo qolooyinkeena dekadu xaqiijiyeen information ka doon heleen ee sax ah ee madaxweynaha noo soo qoray waxaanu goosanay inaanu sii dayno waxaanu goosanay inaanu ku qanacnay warkaana la soo siiyay sideed item oo kala gedisan bay ahaayeen waxaanu aaminsanahay inay xagga ku socotay arrinka saas ku dhamaaday marka waxaanu baleenayaa marka lagu celiyo alaabta waa la rarayaa sida ugu dhaqso badan baan u bixi doonaa markabka ma laga qaadayaa wax magdhow amba wax deedii mar aanu ku jirin wixii uu soo gudbiyay amarkii maxkamadda macalimiinta waanu caafinay mana ka qaadayna wax ganaaxa maadaama dawlad aan walaalnahay tiri annaka hawsha la cilaaqaadna naga dhaxeeyo wadan aan walaalnahay oo jaarnimo naga dhaxaysa ay tahay ganaaxii waanu ka dhaafnay waanu sii daynaynaa waanu baxaya waana maasay meesha dambeysay Somaliland adduunyada wada too xiriirada ka dhaxeeya dana la soo daarsada marka laga yimaado in arday reer Somaliland magaca Soomaali ku tagaan Muqdisho tagaan maxay Somaliland ku bedelatay markabka fasaxada Somaliland iyo dawladda Suudaan cilaaqaad ka dhaxeeya fara badan anigu waa doctor 7 sanadood baan joogay ninka UN-ka ugu weyn haystaan ahaa cilaaqaad wanaagsan baa inaga dhaxeeya ardaydeena si fiican bay ugu barataa hawlaha siraan oo ka wada hadli doona waana mahadsantiin